alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii xisnulmuslim baynu ku soo jirray baabka 116 altakbiiru ida ata rukna alaswad takbiirta la takbiiranayo allahu akbar la odhanayo markuu yimaado xajarulaswadka markuu yimaado xadiiska 234 طaafa الnabiyu salى اllahu aleyh wasalam bilbeyti calى baciir nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa ku dawaafay beytka calaa baciirin tulid korkeed xaaluu ku sugan yahu ku dawaafay kulama ata rukna ashaara ilayhi bishayin cindah mar kastoo uu rukniga yimaado bimacnaa xajarulaswadka yimaado ashaara ilayhi nebigu waa tilmaami jiray calayhi الsalaatu wasalaam rukniga bimacnaa xajarulaswadkaas ayuu tilmaami jiray yani rukni waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa waa koonaha marka maadaama koonahan uu ku jiro ayaa rukn alaswad waxaa looga jeeda xajar alaswad yani laga tilmaamaya ashaara ilayhi bishayin cindah nebigu wuxuu ku tilmaami jiray calayhi asalaatu wasalaam shay agtiisa ku sugan wa kabbara waana takbiiran jiro allahu akbar buu odhan jiray xadiiskana bukhaari baa soo wariyey min xadiisi cabdillahi bni cabbaas xadiis kaloo la mida wuxuu sheegayaa inuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi طaafa الnabiyu salى اllahu aleyh wasalam fii xajati اlwadaaci calىa baciirin yastalimu الrukna bimixjan waxaa soo wariyey bukhaari baa isagana soo wariyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku dawaafay isagoo tulud saaran rakuub ahaan ka dhigtay ayuu ku dawaafay oo isagoo tuluddaa saaran oo rakuub ay u tahay ayuu ku dawaafayo ku wareegayey kacbada cagaha kuma soconayn culamada qaarkood waxay dhahay xikmada ku jirta waxaa ka mida inay dadku si fiican nebiga u wada arkaan calayhi asalaatu wasalaam si waxa weye ay ugu daydaan tilmaamihiisa iyo waxa uu samaynayo oo markaa waxawe si fiican ugu muuqdo xaaja inay jirtayna waa dhici kartaa oo nebigu u baahnaa taasna waa suuroobi kartaa ama uu daallanaa ama wax la mida yastalimu rukna bimixjan wuxuu ku taabanayey xajarulaswadka bakoorad buu ku taabanayey yani ul markaa madaxa ka qalloocda ayuu ku taabanayey ul madaxa ka qalloocda waa bakoorad ayuu ku taabanayey oo ma soo wareegey markuu xajaru aswadka soo gaadho ayuu markaa waxa weye usha ku taabanayey usha ayuu ku taabanayey xadiis kale wuxuu sheegayaa abitufayl laga soo warinayo inuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yatuufu bilbeyti wayastalimu rukna bimixjanin macahu wayuqabilu lmixjan muslim baa saxiixa ku soo wariyey haddii waxa weeye markaa makhrajka xadiisku haddii xadiiska cidda soo warisay saxaabada ay kala duwanaato lama yidhahdo waa riwaayo waxa la yahay waa xadiis mustaqili ah walow haba isku mid ahaadaan yani waxa weeye hadday xataa labada xadiis matni ahaan isku mid yihiin laakiin laba saxaabi ay soo kala wariyeen lama odhanayo waa riwaaya markaysa marka ayaa sidan markaa riwaaya lilxadiis ayaa sidan ku soo aroortay waxaa la odhanaya waa xadiis mustaqili ah ayaa la odhanaya waa sababta marka waxa weeye dhacda inay culammadu wakhtiyada qaarkood xadiis matnigiisu saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan yahay ay yidhahdaan xadiiskan bukhaari ma soo warin markuu saxaabiga ka duwanaado dadka aan garanayn waxay odhanayaan lafdiga markay eegaan matniga xagguu u leeyahay markaa kuma soo warin bukhari muslim soo ku yaalla bukhaari waxaa la odhanaya mar haddayna isku saxaabi ahayn waa kala duwan yihiin bukhaari wuxuu ku sugan yahay isagoo markaysaga min xadiisi ibni cumara ama min xadiisi abi hurayra xadiiskana waa min xadiisi cabdillahi bni mascuud marka waa xadiisun aakhar matniga ha eegin waxaad eegtaa markaysa marka waxaan cidda soo warisay marka abitufayl waxau yidhi waxaan arkay rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo kacbada ku dawaafaya oo xajaru aswadka ku taabanaya bakoorad marka uu haystay ayuu ku taabanaya bimixjanin macahu wa yuqabilu lmixjan waxaanu dhunkanayaa yani bakooradda halkuu ku taabtay xajaru aswadka ayuu dhunkanaya xadiiskaana muslim baa soo wariyey calaa kulli xaal xajaru aswadku waa dhagax jannada laga keenay sida axaadiista qaarkood ay sheegayso waa afdalu xajar fi dunya waa dhagaxa ugu mudan ee ugu fadliga badan ee adduunyada ku sugan asalkiisuna wuxua min aljanna waagii horena waa caddaan jiray sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa madoobeeyey dembiyadii gaalada ayaa madoobeeyey yani marka dembiyadii gaalada ayaa madoobeeyey iminka waxa weye waa madow yahay yani shay madow shayga ugu madow buu la mid yahay madowga
laakiin markii hore wuxuu abyad ashaddu bayaadan min allaban caanaha markii hore waa ka caddaa laakiin dembiyada aadamigu la madoobaaday hadduu siduu ahaan lahaa uu ahaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo caddaantiisii ku baaqi noqon lahaa qof kastoo taabtaa hadduu xanuunsanayo waa bogsan lahaa yani saas xadiis baa ku soo aroray culamada qaarkood ay quweeyeen marka xajar aswadka dawaafkaa laga bilaabaa laguna dhammeeyaa marka kacbada lagu dawaafayo waxaa laga bilaabayaa xajaru aswadka laga bilaabaya mawdican xajaru aswadka ahayn haddii laga bilaabo intaa ka horaysa waxay noqonaysaa yani marka mulqan waxba laga soo qaadi maayo masalan kale xajaru aswadka iyadoo la dhaafay ayuu marka waxa weye meel dhexe ka bilaabay ma odhanayo halkaan ka bilaabun baan ka tirsanaya markaan halkaas soo gaadha marba ii noqonaysa oo deedna 7 goor saasaan ku dhammaynaya xajaru aswadka waa laga bilaabaa waana lagu dhammeeyaa waa laga bilaabaa waana lagu dhammeeyaa marka waxaa sunno ah xajaru aswadka in la dhunkado nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhunkaday xajaru aswadka arrinka dhunkashada ku saabsan sheikhu inuuma qorin laakiin takbiirta ayuu ka eegay dikriga la odhanayo bes waa u soo noqonayna taas waxaa sunnaa xajaru aswadka in la dhunkado a sunnaa oo mar kasta xajaru aswadka in markaa la dhunkado ayaa sunno ah oo lagu wareegayo kacbada yani waxa weye sidaas yani markaa loo dhunkado waayo wuxuu sheegayaa kulama ata rukna ashaara ilayhi bishay markastuu rukniga yimaado waxbuu ku tilmaamaya waa martaba markaa dambe tilmaantu laakiin maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya in marka hore la dhunkado haddii ruuxii u suuro gasho inuu dhunkado adigu marka waxa weye kolley tiib iyo udgoon badan baa la mariyaa wakhtiga uu qofku muxrimka yahay waxa fiican inaan markaysa waxa ku taaban jirhkiisa waayo ruuxa muxrimka ahi dee udgoon looma ogolaa isagana waxa weeye markaa udgoon baa ka buuxa yani waxaa lagu shubay markaysa markaa cadarro yani waxa weyan ayaa lagu shubay waxyaale udgoon hadduu marka waxa taabto inuu udgoonkii dooranayo ayay markaa noqonaysa marka wakhtiga aanu muxrimka ahayn ama uu xalaaloobay xalaalowgii yaraa ama aanu muxrimka ahayn buu dhunkanaya caadatan hadda saasaa dee udgoonku marka u yahay haddii laakiin de ay dhacdo in mar la maydho aan udgoon markaanu lahayn laa maanica marka inuu dee taabto ama dhunkado walow muxrimba ha ahaado taasi haddii ay ku adkaato martabada labaad waxay tahay waa inuu shay ku taabto xajaru aswadka oo shaygaa uu ku taabtay dadna halkuu kaga taabtay uu dhunkado masalan oo kale gacantuu la gaadhay waa ku istilaamay gacantii waa dhunkanaya halkuu ku taabto uu dhunkanaya masalan oo kale markaa ul buu taabsiiyey ushii uu taabsiiyey halkii buu dhunkanaya taasina waa martaba labaad martabada saddexaad waxay tahay haddii aanu waxba la gaadhin wuxuu samaynayaa ishaaro tilmaan uu tilmaamayo ayuu markaa samaynaya ishaarada tilmaantana wuxuu ku tilmaamaya yani waxa weeye gacanta midig iyaduna axaadiista qaar bay ku soo aroortay inuu gacanta midig marka waxa ku ishaaraya marka uu mar walba xajaru aswadka marayo waa inuu xagga xajaru aswadka u jeestaa markuu u jeesto ayuu gacanta midig marka waxa ku tilmaamaya labada gacmood kuma wada tilmaamayo dabeedna allahu akbar buu odhanaya dabeedna marka waa soconaya inuu halkaa taagnaado ku ducaysto ma aha waayo ma soo aroorin nebiguna ma samayn calayhi salaatu wasalaam nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma samayn marka taasna saas yadaa weeye haddii markaa aanu shaygaa taabsiinin ma dhunkanayo shaygaas waayo xajar aswadkii ma taaban mar haddaanu taabanna shaygii ma sii dhunkanayo ama gacantiisa ha noqoto ama marka wuxuu tilmaamaya ha noqotee oo gacanta ku haye taasna iyadana saas weeye mar kastuu soo marana sidii si la eegunbuu samaynaya wuxuu tawaafka mar walba shawd kasta ku bilaabaya allahu akbar nebiguna calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa cumaru inaka rajulun qawiyun falaa tu'di adaciif cumarow waxaad tahay nin xoog badan ee ruuxa daciifka ha dhibin yani xajar aswadka taabashadiisa ama dhunkashadiisa fain khalaa laka alxajaru yani marka waxa weyaan yani faqabilhu haddii xajaru aswadku kuu bannaanaado yani waxa weeye dhunko wailaa fastaqbilhu wakabir hadduu kuu bannaanaan waayana qaabil oo xaggiisa u jeeso oo takbiiro allahu akbar dheh xadiiskana sheekh albaani waa quweynaya marka in la istiqbaalayo xaggiisa loo jeesanayo lana takbiiranayo oo allahu akbar la odhanaayo ayaa xadiiskaasina markaa tilmaamaya
dhunkashada la dhunkanayo loogama jeedo barakaysi la barakaysanayo loogama jeedee itibaac nebiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam baa loo jeedaa sida xadiiska saxiixaynkuba sheegaayo cumar ibnu khataab inuu dhunkaday xajaru aswadka dabeedna wuxuu yidhi wallahi inii la aclamu anaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk wuxuu yidhi wallahi waan garanayaa inaad dhagax tahay oo aanad waxna dhibayn waxna anfacayn oo dhib iyo dheeftoonna aanad lahayn haddaanan arki lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen bes waxaan kuu dhunkanayaa itibaac nebiga aan raacayo nebiga raacitaankiisii la raacayey ee lagu dayanayey baa loo samaynayaa waa cibaado ilaahay lagu caabudayo xajar aswadkana mid laga barakaysanaya ma aha tabaruk loogama jeedo markaa sidaas iyada ah weeyaan marka la khatimaayo oo tawaafkii marka u dhammaado marka ugu dambaysana markaa ma samaynayaa inuu waxa weeye markaa takbiirto ama marka waxa weeye uu markaa taabto haa hadday u suuro gasho hadday taabasho tahay iyo hadday dhunkasho tahay iyo haddii waxa weeye markaa ishaare ay tahay yani daahirka xadiisku muxuu sheegaya kulama ata rukna ashara ilayhi bishayin cindahu wakabar markana dee waxa weye waa u yimi baabka 117 adducaau bayna rukni اlyamani waalxajar aswad ducada lagu ducaysanayo xajaru aswadka iyo ruknulyamaaniga dhexdooda lagu ducaysanayo ayuu markaa baab u yahay oo laga hadlayaa maxaa la odhanayaa labada rukni dhexdooda kacbadu waxay leedahay 4 koonay leedahay labada koone ee galbeedka waxba kuma soo aroorin waayo qawaaciddii ibraahim kuma fadhiyaan labada koone ee barigu waxay ku fadhiyaan qawaaciddii ibraahim bay ku fadhiyaan marka labadaa khusuusiya loo yeelay oo koonaha uu ku jiro xajaru aswadka isaga marka waxa weeye dhunkasho iyo taabasho ayaa mid waliba u soo aroortay koonaha kale ee marka isaguna marka ah koonfur bari xiga koonfur bari koonaha xiga isagana waxa weeye waxa u soo arooray taabasho laakiin lama dhunkanayo wixii lagu taabtayna la dhunkan maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam koonaha koonfur barina waa taabtay marka taabashadaasuu leeyihi waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaa taabashada la taabtaa ya ina masxahumaa yaxutaani alkhataaya xataa taabashada la taabtaa labadaa koone yani xajaru aswadka iyo koonaha kale koonfur bari taabashada la taabtaa dembiyaday daadinayaan daadin laakiin cid inuu u dhibo ruuxu maaha oo cid u jiidho waayo shay sunno ah dadaalka uu ku dadaalayo inuu marka waxa weye cid ugu tacadiyo ama u dulmiyo ama markaysa markaa yani u jiidho ma aha waa inuu marka dadka xurmadooda ilaaliyaa ou dhowraa oo aanu dhibin dee dembi inuu u galo ila maaha marka haddaba labada dhexdooda muxuu odhanayaa markuu koonaha koonfur bari ka soo laabto aanu weli xajar aswadka gaadhin labadaa dhexdooda dikri la odhanaya ma soo aroortay wuxuu sheikhu yidhi 235 wuxuu odhanayaa rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducadaas ayuu ku celcelinayaa oo ku ducaysanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunya adduunyada gudaheeda xasanatan wanaagna sii wa fi laakhirati aakhiro gudaheedana nasii xasanatan wanaagna sii waqinaa naga dhowro naga ilaali cadaaba annaar naarta cadaabteeda naga ilaali xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasaa'i fi lkubra iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey xaakim waa saxiixiyey calaa sharti muslim ibnu xibbaan waa saxiixiyey ibnu khusayma waa saxiixiyey albani waa taxsiiniyey oo wuxuu yidhi waa xasanulisnaad saas yadaa buu yidhi marka wuxuu tilmaamayaa inuu cabdullaahi ibnu saa'ib uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquulu maa bayna ruknayn waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya labadaa rukni dhexdooda bimacnaa labada koone ee yani yeman xiga ama bari xiga dhexdooda wuxuu odhanayey rabbanaa aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar saasuu ku ducaysanayey marka ducadaas in lagu ducaystaa inay fiicantaa laga qaadanaya
rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wanaaggaa maxaa loo jeedaa aqwaal kala duwan bay culammadu yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxay dhahen xasanada waxaa looga jeedaa caafimaadka iyo qadarulkifaaya in la helo yacni quud lagu noolaado oo qadarka ruuxa markaa ku filan ah sidaa waxaa yidhi qataada waxaa kaloo la yidhi fi dunya xasanatan waxaa loo jeedaa almar'atu asaalixa gabadha wanaagsan cali baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa loo jeedaa cilmi iyo cibaado xasan baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa looga jeedaa maalka wanaagsan ee xalaasha ah suddi baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi xasanada waxaa la yidhahdaa awlaadda baariyiinta ah ee aan markaa waalidinkaarka ahayn ama ammaanta wanaagsan ee khalqigu ku ammaano ibnu cumar baa laga soo wariyey waxaa kaloo la yidhi caafimaadka iyo kifaayada yacni in markaa cadowyada lagaa kaafiyo iyo in lagaaga hiiliyo iyo in markaa faham lagu siiyo kitaabka qur'aanka ah ayaa xasanada aqwaal badan baa la sheegay aqwaal badan ayaa la sheegay haddii la eegana siiqa ahaan xasana waa nakira fii siyaaqi alihbaat hadal la sugaayo gudihii ayaa nakira ku timi nakiraduna hadday siyaaquulihbaat timaaddo cumuum ma faa'iidaysay itlaaq bay faa'iidaysay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa xasano kastaa lagu xambaarayaa adduunyada lagu helo hadday markaa nakirada siyaaquulihbaat dhacday aynay faa'iidaynin cumuum sababta ay markaa ugu xambaareen macnaha guud maxay tahay jawaabtu waxay tahay ahlucilmigu waxay tilmaamayaan ka qaacide ahaan inaan si guud uga imanin nakira hadday dhacdo hadal la sugaayo dhexdii hadday dhacdo inayna cumuum faa'iidayn si haaliba laakiin mararka qaarkood haddii qariina ku tusinayso inay faa'iidayso waa dhacdaa inay faa'iidayso hadday maqaam imtinaan tahay ama maqaamada qaarkood ama qariina loo helo xaalaadka noocaasoo kale waa ku tusinaysa culamada qaarkood weji kale ka eegeen waxay yidhahdeen xasanadu waa mutlaqa waa la iطlaaqay xasanadii maadaama la iطlaaqay mid lagu ducaysanayana ay tahay waxay ku dhacaysaa alxasana alkaamila xasana mutlaqa waxay noqonaysaa xasano dhammaystiran ee xasano naaqisa noqon mayso xasano dhammaystiran maadaamay tahayna waxay ku dhacaysaa kullu xasana yani markaa fi dunya maqaamu ducaa la joogaa xasano kastoo adduunyada ku sugan baa soo gudagelayso waxay noqonaysaa xasana kaamila fi dunya markaa fa tashmalu jamiica xasanaatiha xasanaadkii adduunyadoo dhan bay camimaysa wa fi laakhirati xasana aakhiro gudaheedana xasano ilaahow nasii xasanada nasii aakhiro waxaa soo gelaya ashyaa badan waxaa soo gelaya janno nasii waxaa soo gelaya naar naga badbaadi waxaa soo gelaya noo dembi dhaaf waxaa soo gelaya derajo koraysa nasii waxaa soo gelaya naga raali noqo waxaa soo gelaya ilaahow markaa iskaayo tusi oo aanu ku aragno yani waxaa soo gelaya nebiyadiiyo dadkii wanaagsana aan la rafiiqno iyaduna waxay noqonaysaa wax kastoo xasano oo fil aakhirati ku sugan inay soo geliso waqinaa cadaaba annaar cadaabunaarka naga dhowr naarta cadaabkeeda cadaab annaar waxaa soo gelaya kulkeeda iyo qabowgeeda zamhariiradeeda iyo waxa weeye kulka marka waxa dhuuriga kulul ee markaysa marka yani ay gelayso meelaha daldaloola iyo gaajadeeda iyo haraadkeeda iyo qarmuunkeeda iyo cidhiidhigeeda iyo waxyaalaha marka wax lagu ciqaabe ee naarta gudaheeda ku sugan hadday tahay marka dibqalloocyadeeda iyo abeesooyinkeeda iyo marka waxa weeye yani waxyaalaha la midka kullu daalika soo gelay war qariiba waxaa laga soo wariyey cali inuu yidhi rabbanaa aatina fi dunya xasana waxaa looga jeedaa almar'atu asaalixa gabadha wanaagsan wa fi laakhirati xasana waxaa looga jeedaa xuuralciinta wa qinaa cadaaba annaarna waxaa looga jeedaa gabadha xun sidaa inuu ku fasiray hadday ka asaxdo wuxuu uga jeedaa tamhiila inuu ku koobaayo ugama jeede inuu tusaalaynayo uga jeedaa waxaanay u eg tahay noocii ishaariga la odhan jiray oo kale mooddaa inay u eg tahay khaasatan wa qinaa cadaaba annaar xuuralciintu inay soo gelayso dee jannada wixii ku sugnaa iyo wanaagyadii aakhiro ku sugnaa bay ka mid taho inay soo gelayso ishkaal kuma jiro laakiin waxaa baciida waqinaa cadaaba annaar in lagu fasiro yani almar'a asaliita ama almar'a asayi'a gabadha xun marka in lagu fasiraa waxa weeye waa arrin baciid ah culamo badanoo mufasiriina markaa yidhahdeen xasanada adduunyada iyo xasanada aakhiraba waa caam bay noqonaysaayo xasano kastaa soo gelaysaa fi dunya aw fi alaakhira baabka 118
ducaau alwuquufi cala asafa waalmarwa safa iyo marwa istaagga la isku taago ducada lagu ducaysanayo. xadiidka 236 lamaa danaa sala allahu alayh wasalam min asafa markuu nebigu calayhi asalaatu wasalaam u soo dhowaaday safa qara'a waa akhriyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah safa iyo marwa yacni tawaafka lagu tawaafayo ama markaa la sacyinayaa min shacaa'ir illaah waxay ka mid tahay calaamaadka diinta ilaahay bay ka mid tahay. aayadda ayuu akhriyey dabeedna wuxuu yidhi abda'u bima bada'a allaahu bih waxaan ku bilaabayaa wuxuu ilaahay ku bilaabay. fabada'a bisafa safa ayuu ku bilaabay bimacnaa safa iyo marwa dhexdooda 7 goor baa sacyi lala imanaya oo la soconaya waa 7 maraat. sacyi waa la yidhahdaa tawaafna waa la yidhahdaa falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima yani tawaaf baa laga cabira tawaaf bayna asafa waalmarwa waa la yidhahdaa sacyina waa la yidhahdaa ina allaha kataba calaykum asacya fascaw marka kee laga bilaabaya 7 nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka bilaabayaa ku ilaahay ku bilaabay labada keebuu horaan sheegay ma safa mise marwa safa markaa safadan ka bilaabaya waxay ku tusinaysaa khusuusiyada ay leedahay bilowga ilaahay ku bilaabay baa laynagu baraarujinaya iyadoo waawga aan loo isticmaalin tartiib oo ay caan tahay in la yidhahdo waa limutlaqi aljamci kulmin keliyoo la kulminaayay wowgu faa'iideeyaa ayuu haddana nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi asalaatu wasalaam kii la horaan sheegay in la horaan sameeyo inay tahay abda'u bima bada'a allahu bihi wow baana la ysugu cadfay ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah fabada'a bisafa safuu ku bilaabay faraqiya calayhi waa koray raqaa yarqii waa tufitaanka raqiya yarqaana waa koritaanka marka waa raqiya hadda maaddadani waxaynu u sheegaynaa ta kale si ay kugu kala calaamadsadaan si aad u kala garato aad markaa ayna isugu qaldamin xataa ra'a albeyt safa ayaa nebigu koray calayhi asalaatu wasalaam ilaa uu kacbada arkay faistaqbala alqibla qibladuu qaabila oo u jeestay xaggeeda fawaxad allah ilaahay buu keliyeeyey wa kabbarahu ilaahay waa weyneeyey allahu akbar buu yidhi wa qaala wuxuu uhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqii u sugnaatay laa shariika lahu xaalaanu ilaahay wadaaga lahayn baa uluuhiyada xaqii u sugnaatay lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulkigu oo wax walba ilaahay isagaa mulkiya makhluuq kastaba isagaa leh caalamkao dhan iyo makhluuqaadkao dhan isagaa mulkiya walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday xamdi dhammaystiran oo kaamili wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan laa ilaaha ila allah waxdah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay anjaza wacdah waa fuliyey ilaahay ballanqaadkiisii wa nasara cabdah waa u gargaaray addoonkiisii waxaa loo jeedaa rasuulu llahi muxamed sala allahu alayh wasalam baa loo jeedaa wa hazama alaxzaaba waa jebiyey yacni gaashaanbuurtii ayuu jebiyey gaashaanbuurtii gaalaad waxdahu xaaluu allah keligii yahay buu jebiyey uma dacaa bayna dalik dabeedna nebigu waa ducaystay intaa dhexdeeda qaala mila haada 3 maraat saasoo kale wuxuu yidhi 3 goor ayuu yidhi alxadiisa ay iqra' alxadiisa xadiiska akhri ama akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir haddii la kordhigo ficil baa loo qadaraya haddii godaalka sida hadda markaa nuskhada inoogu sugan oo in la godo hadday tahay iyadana waxaa loodhaya alxadiisu kaa'inun bitamaamihi wuxuu ku sugan yahay dhammaystirankiisu ku sugan yahay weji saddexaad waa banneeyaan alxadiisi in la yidhaahdo laakiin iyada waa laga fiican yahay waayo waxay noqonaysaa ilaa aakhiri alxadiis marka xarfu jarkii oo maqan jaarkii oo maqan in haddana jarkii la baaqi yeelo ayay noqonaysaa taasina waxa weeye waa khilaafu alqiyaas wa fiihi fafacala cala almarwati kama facala cala asafa marwo korkeedana wuxuu ka sameeyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam siduu safa ka sameeyey oo intuu koray ayuu intii in laga akhriyey ku ducaystay saasuu la yimi xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi jaabir
wuxuu ka mid yahay xadiiskii dheeraaya jaabir buu ka mid yahay xadiis macruufoo xadiisu jaabir la yidhaahdo aad uga warramaya nebiga xajkiisa calayhi asalaatu wasalaam ayaa jira axaadiista markaa ka warrantay markaa xaju nabiy sala allahu aleyh wasalam xadiiskaa jaabir xadiis la midii ma jiro saas aawoodee ahlucilmigu aad iyo aad bay u ammaaneen saas aawoodee ahlucilmigu aad iyo aad bay u ammaaneen yani markaa xadiiskaas yani waxa uu koobsaday waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey lakiin riwaayaadka qaarkood oo muslim ka baxsan baa jira culamada muxadisiintuna aad iyo aad bay u ammaani jireen sida uu xajka nebiga uga warramay tafaasiisha uu sheegay yani umuuraha uu ka warramay sida xikaayada arrinkaa uu ka xikaayoonay u sardiyey oo u taxay aad iyo aad bay u badnay sababta keensatay markaa sababta keensatay sheekhulalbani inuu risaalaba ka qoro ou yihi xajatu nabiyi sala allahu aleyh wasalam kamaa rawaaha jaabirun xajkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam sidii jaabir u soo wariyey dabeed markaa wuxuu sameeyey culammada markaa wuxuu keenay culammadii aad u ammaantay dabeedna wuxuu yihi riwaayada muslim soo wariyey ammaaneene riwaayaadka kale in laga soo guro ee markaa xadiiskani leeyahay inaan muslim ku dhicin kutubta kale laga soo guro iyadoo sixa uun loo eegayo dee waxa weeye taasi waa macno weliba ka ziyaada atay ammaanayaan culammadu marka kitaab buu markaysaga ka qoray xajatu nabiyi la yidhaahdo dabeedna marka waxa masaa'ishana uu ku hoos sharxayo duruqda xadiiskana uu ururinayo yani masaa'ishana uu ka warramayo waxyaalaha laga istinbaadayo waxyaala lagala baxayana uu tilmaamayo waayahay waxaa laga qaadanayaa safa iyo marwe marka lagu tawaafaayo ama safa iyo marwa marka la sacyinayo oo 7 goor sacyi la samaynaayo waxaa laga qaadanayaa in dee adkaartaa la odhanayo inta safa korkeeda la koro ayaa la takbiiranaya dabeedna waxaa la odhanaya laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha illa allah waxdahu anjaza wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah saasaa la odhanaya dabeedna waa la ducaysanaya haddana waxa weeye intii in leeg baa la soo odhanaya haddana waa la ducaysanaya haddana intii in leeg baa la odhanaya haddana waa la ducaysanaya 3 goor baa lagu celinayaa 3 goorbana waxa duca ayaa laga dambaysiinaya marwe marka la korna intii in leeg baa laga odhanaya sacyigaa safa iyo marwa marka safa laga bilaabo oo marwe la tago waa hal mar marka haddana marwe laga soo bilaabo oo safa la yimaado waa mar labaad saasay noqonaysa laakiin inta safa laga tago in safa lagu soo noqdo mar la xisaabin maayo bilowga safa laga bilaabo marwe marka la gaadho hal mar baa dhacay sacyigii mar baa lala yimi marka haddana marwe laga soo bilaabo safa la yimaado waa mar labaad 7 gooroo saasaa la tirinaya markaa safuu ka bilaabmayaa marwaanu ku dhammaanaya ila waa tiro isdheere geesna 3 goor baa loo soconaya geesna 4 goor baa loo soconaya saas yada wey xagga marwe waxaa loo soconayaa 4 goor xagga safana waxaa loo soconayaa 3 goor 7 saasay ku dhammaystirmaysa 7 sidaas ayay ku dhammaystirmaysaa 7 saasay ku dhammaanaysa wahazama alaxzaaba waxdah waxaa loo jeedaa gaashaanbuurihii gaalaad ee maalintii ghaswat alaxzaab isa soo gaashaanbuuraystay inuu ilaahay jebiyey marka waa ictiraaf nicmada ilaahay la qirayo oo rabbi lagu ammaanayo yani weeye inuu ballanka oofiyey inuu addoonkiisa u gargaaray muxamed nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam inuu ciidamadii gaalaad jebiyey waa ammaan ilaahay la ammaanayo oo marka waxa weye loogu shukri naqayo saas yada wey baabka 119 adducaau yowma carafa ducada lagu ducaysanayo maalinta carafa xadiiska 237 khayru ducaai ducaau yowmi carafa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi duca waxa ugu fiican ducada maalinta carafa lagu ducaysto wa khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qablii laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waxaan anigu idhaahdo waxa ugu wanaagsan buu yidhi ugu khayr badan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idhaahdo waxa ugu khayr badan ana anigu aan idhaahdo wannabiyuuna min qablii nebiyadii iga horreeyeyna ay yidhaahdaan waxa ugu khayr badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay
baa uluuhiyada xaqa ahi u sugnaatay laa shariika lahu xaalaan wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagtaa ayna jirin wuxuu la gaarka yahay cid la wadaagtaa xaalayna jirin ayaa allah ay u sugnaatay uluuhiyada xaqa ah iyo ilaahnimada xaqa ahi lahu lmulku ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mulki oo dhammi oo wax walba isagaa mulkiye mulki xaqiiqi oo dhab ah cid la lihina ma jirto cid la wadaagtaana ma jirto walahu alxamdu ilaahay oo qura ayuu u sugnaaday mahadnaq oo dhammi wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u yahay mid u awood badan ayuu ilaahay yahay xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey min xadiisi cabdillaahi bni camr bni caas sheekh albaanina waa taxsiininayaa duruq kaleoo markaa macnahaasoo kale sheegaysaana waa jiraan oo kale soo aroorayna waa jiraan xadiiskan wuxuu ka warramayaa maalinta carafa ducadeedu inay fadli badan tahay maalinta carafa waa fadli badan tahay waxaana u soo aroortay fadaa'il ayaa u soo aroortay waxay ka mid tahay maalmihii 10 ahaa ayay ka mid tahay oo uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa min ayaamin maalmo ma jiraan alcamalu asaalixu fiihinna khayrun camalka wanaagsani uu ka khayr badan yahay xagga ilaahayna looga jacayl badan yahay min hadihi alayaam maalmahan yacni wuxuu u jeedaa 10 dilxija 10 maalmood ee bisha dulxija ama arafa ugu horeeya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegayey marka 10 maalmood inay yihiin maalmaha ugu khayrka badan ilaahayna ugu jecel yahay camalka saalixee lala yimaado ayuu nebigu sheegay calayhi asalaatu wassalaam xadiiskana wuxuu ku sugan yahay saxiixa oo waa fii saxiixi albukhaari xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam afdalu ayaami addunya ayaamu alcashr maalmaha adduunyada waxaa ugu khayr badan oo ugu fadli badan maalmaha 10 baa ugu khayr badan maalmaha 10kana waxaa loo jeeday 10 dulxija ugu horeeyaa loo jeeday xadiiskana waxaa soo wariyey bazaar wakhayruh min xadiisi jaabir sheekh albaanina waa saxiixinaya maalinta carafa lafteeda waxay ka mid tahay maalmaha iyadoo ka mid a haddana waa maalmaha ugu fadli badan oo maalmaha 10 waxaa ugu sii fadli badan yowmu carafa iyo yowmu naxri maalinta ay 9 tahay sagaaloodka bisha carafa 9 arafo iyo maalintay 10 tahay labada maalmood baa ugu sii fadli badan waxaana sii fadli badan yowmu carafa waxa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa min yowmin akthara min an yuctiqa allahu fiihi cabdan min annaari min yowmi carafa maalini ma jirto ay ka badan tahay ilaahay inuu ka xoreeyo naar cid ka xoreeyo addoon uu naar ka xoreeyaa maalinay ka badan tahay ma jirto maalinta carafa naar xoraynta in addoommada naarta laga xoreeya waa maalintay ugu badan tahay siduu nebigu sheegay calayhi asalaatu wassalaam waa maalintay ugu badan tahay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka maalintani waa fadli badantay waxay isweydiiyeen culammadu yowmuuljumuca iyo yowmu carafa kee fadli badan waxaa laga soo naqliyaa sheikh taabiciya inuu yidhi yowmuuljumuca fadli badan laakiin saxiix ma aha siday jamaahiirta culammadu qabaan waxaa fadli badan yowmu carafa ayaa fadli badan waxaa laga yaabaa inuu marka waxa weeye cidda tidhaahda yowmu jumuca fadli badan inay arkeen xadiiska sheegaya khayru yowmin talacat fiihi shamsu yowmu ljumuca maalin qorraxi soo baxda waxaa ugu khayr badan maalinta jumcada ayaa ugu khayr badan laakiin xadiiskaas wuxuu markaa sheegayaa ayaamu lusbuuc yacni ayaamaha wiigga ayuu sheegayaa inay yowmuljumuca ugu khayr badan tahay laakiin fadaa'isha yowmu carafa ay koobsatay yacni waxa weye ma koobsan yowmuuljumuca ay tahay marka waxa weeye maalin yacni maalinta ugu xoraynta badan addoommada naar in laga xoreeya ay ugu fara badan tahay oo ay tahay maalintuu ilaahay soo dhowaanayo ilaahay marka waxa yowmu carafa xadiista waxaa ku soo aroortay innahu la yadnu waa soo dhowaadaa addoommadiisa u soo dhowaadaa uma yubaahi bihim almalaa'ika dabeedna malaa'igtu ugu faanaa ma araada haaulaa kuwaasi maxay doonayeen kuwaasi addoommadii carafo taagan oo waxa weeye markaysaa 2 go'a cadcad sitaa oo ilaahay uu ibtihaalayo ilaahay baryaya ilaahay markaa waxa dembidhaaf weydiisanaya ayuu yidhaha ma araada haaulaa
kuwaasi maxay rabaan marka fadaa'il marka yani gaara ayay sidaa u koobsatay maalintani marka ay koobsatay yowmu carafa marka ayaamaha sanadka marka la eego waxaa ugu fadli badan yowmu carafa ayaa ugu fadli badan waxayna ku jirtaa 10kii maalmood ee sanadka ugu khayrka badnaa ayay ka mid tahay yowmu carafa ay ka mid tahay yowmu carafa maalintaasay markaa ka mid tahay marka fadaa'il khaasa oo ku soo aroortaa jirta axaadiis mutacadida ayaa ku timi saas aawadeed waa maalin fadli badan weeye marka duca lagu ducaysto ducada maalinta carafa lagu ducaystaa ugu khayr badan wuxuuna nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam khayru maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah marka waxaa laga qaadanayaa ducada in lagu dadaalo yowmu carafa cidda weliba ku sii dadaalaysa waxaa loo jeedaa cidda markaa joogta carafa cidda carafa joogta inay ducada marka aad ugu dadaasho oo aad ilaahay u barido oo khayr addunya waalaakhira ilaahay weydiisato khayrka adduunyada iyo aakhiro naftiisana uu duceeyo waalidiinta uu duceeyo ciddii xaq kule uu duceeyo ee muslimiintoo dhanna uu duceeyo ayaa markaysa markaa fiican marka isaguna dadka uu ducaynaayo wuxuu ka helayaa ajar buu ka helayaa hata axaadiis ay ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ruuxa muslimkii hadduu u duceeyo walaalkiisoo ka maqan hadduu u duceeyo malak baa yidhaahdaa aamiin ilaahayu ducadan ajiibu aqbal walaka bimilin adna intaa in la-eg baad leedahay yani xadiiska caynkaas wuxuu tilmaamayaa in ruuxana loo aqbalayo malagaasina markaa aamiin u odhanayo ruuxanna marka waxa intii in la-eg in la siiyo ayaa markaa dhacays saas aawoodee waxaa la soo naqliya bacdu salaf waxyaalaha wanaagsan ay doonayaan walaalahooda muslimiinta ka maqan bay ugu ducayn jireen si iyagana ay ugu samafalaan iyaguna ay u helaan sidaasoo kale ay u helaan yani waxa weeye dadka muslimiinta ka maqan buu u ducaynayaa markaasuu le ilah u dembi dhaaf ilah waxaa sii ilah hebel waxaa sii yani waa u ducaynaya yani waxa weeye ixsaanka uu u sameeyey hebel ama dadka uu sameeyey ugu duceeyey wuxuu ka helayaa ajar ya waa laga ajar siinaya hadduu ilaahay dartii u sameeyo mar labaadkana isaga laftiisana ducadii waad leedahay baa layidhi yani siduu markaa ugu sugnaanaysa ducadu markaa way kala duwanaan kartaa inay sideedii ugu timaado ama balaayo lagaga daafaco ama markaa sawaabkeeda aakhiro loogu kaydiyo ee ajarkeeda yani waxa weeye ducada qofka muslim ku ducaysto ee aan dembi ahayn wax markaa dee aqbalaadeedii diidayana aanu la iman baa loo jeedaa ruuxa waa loo aqbalaa laakiin siyaaro kala duwan bay u timaadaa mar waxay u timaadaa iyadoo marka waxa weeye sideedii ah in loo soo dedejiyo adduunyada lagu siiyo oo wuxuu ku ducaystay uu helo marna waxay u timaadaa in balaayo ku soo socotay lagaga dabaalo oo lagaga celiyo ya marna waxay u timaadaa in sawaabkeeda iyo ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyo marka marlayba ruuxii waa ka faa'iidaya marka ducada marka in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wix isaga iyo nebiyadii ka horreeyeyba ay yidhaahdaan inay ugu khayr badan tahay tawxiidkaas laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir culamada qaarkood waxay yidhahdeen iyada lafteedii baa markaysa markaa duca ah oo tawxiidka ilaahay la waxidaye la keliyeynayaa waxay noqonaysaa markaysa markaa duca ayay noqotaa oo ducadu mar bay noqotaa sanaa ilaahay la ammaanayo ammaan ilaahay la ammaanaayo mar baa markaa ducadu noqotaa waatii ku soo aroortay xadiiskii ducaau lmakruubi an taquula laa ilaha ila allahu alcaiim alxaliimu laa ilaha ila allahu rab alcarshi alcaiim laa ilaha ila allahu rab asamaawaati rab alardi warab alcarshi alkariim yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ducaau lmakruubi an taquula ka kurbaysan ducadiisu ama ducaau lmakruubi an yaquula ducada markaysagaa ruuxa kurbaysan qofka dhibaataysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcaiim alxaliim laa ilaaha ila allahu rab alcarshi alcaiim laa ilaaha ila allahu rab asamaawaati warab alardi warab alcarshi alkariim yani waxa weye tawxiid baa lagu celcelinaya ammaan ilahay la ammaanayo waa tawxiidun wa sanaa qaybna waa tawxiid lagu celcelinaayo ilaahay la keliyeynaayo qaybna waa ammaan ilaahay la ammaanaayo laa ilaaha ila allahu alcaiim alxaliim yani waxa weeye laa ilaaha ila allah markii la yidhi haddana ammaan baa la sii raaciyey asmaadiisii ilahay lagu ammaanayo ayaa la raaciyey marka waa tawxiid iyo ammaan laa ilaaha ila allahu rab alcarshi alcaiim
iyaduna waxa weeye waa saas leeyahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah alcazim alxaliim laa ilaha ila allah rabb alcarshi alcazim laa ilaha ila allah rabb الsamaawaati rabb اlardi rabb alcarshi alkariim yani waxa weeye waa saas weeye marka haddana nebigu wuxuu ku magacaabay calayhi الsalaatu wasalaam ducaa buu ku magacaabay tawxiidka iyo ammaanta inay duco tahay ayaa laga qaadanaya oo lisaanulxaalka ayay duco ka tahay ama min xaysu almacnaa ayay markaa duco ka tahay xadiiskan laftiisa riwaayaadkiisa mid ka mid a ku soo aroortay iyadoo lagu tilmaamayo ducadiiba inay tahay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika la ila aakhirih oo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ka sheegayey baa odhanaya wuxuu yidhi kaana akharu ducaa'i rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam yowma carafa waxay ahayd ducada rasuulka waxa ugu badani maalinta carafa ducadu rasuulku maalinta carafa ku ducaysto waxa ugu badnaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa ala kulli shay lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayr wahuwa cala kulli shayin qadiir yani wuxuu tilmaamayaa ducada nebigu ku ducaysanaayo maalinta carafa waxaa ugu badnay tawxiidkaas laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu biyadihi alkhayr wahuwa cala kulli shayin qadiir marka iyada lafteeda duca la ictibaariyey duco iyada lafteeda ayaa laga soo qaaday iyada lafteeda duca laga soo qaaday culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida duca looga soo qaadaya waxay tahay ammaanta cid la ammaano macno ahaan waxay markaa la macno tahay baryo la baryaayo ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi athanaa'u ya imaam a'immadii salafka ka mida la weydiiyey a'immadii salafka ka mida markaasaa ducadu xaggay kaga jirtaa xadiiskaa sheegaya ducaau lmakruubi an yaquula dabeedna wuxuu yidhi miyaanad maqal ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi athanaa'u hadduu shakhsigu maalinku ammaano inuu isu kaa bandhigo oo wax toos kuu weydiisto waxa kaga filan inuu isu kaa bandhigo oo baryo toosa uu ku weydiisto waxa kaga filan ammaantaa kaga filan marka ammaanta ilaahay la ammaanayo ayaa waxay ka dhigan tahay barye la baryay ka dhigantah waana markaa dee mid inagama naqaano weeye oo cidda marka waxawa doonaysa inay wax ku weydiisato wakhtiyada qaarkood dee inay ku ammaantaa dhacda yani marka waxa weeye marka ammaanta ilaahay la ammaanayo iyo keliyeynta la keliyeynayaa ducay ka dhigan tahay duco ayay ka dhigan tahay waa ducaa min xaysu almacnaa baabka 120 addikru cinda almashcari alxaraam dikriga ilaahay la xusaayo mashcarulxaraamka agtiisa yani musdelifo meesha ka midkae mashcarulxaraamka la yidhaahdo agteeda in ilaahay lagu xuso xadiiska 238 rakiba sala allahu aleyh wasalam alqaswaa'a nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu markaa rakuub ka dhigtay oo uu soo fuulay hashiisii la odhan jiray alqaswaa waa hal magaceed hashaasuu rakuub ka dhigto rakuub ahaan u soo fuulay xataa ata almashcara alxaraama ilaa uu ka yimi mashcarka xurmada leh ilaa uu ka yimi mashcarka xurmada leh ilaa uu ka yimi waa halkaa musdelifo ka midka ah ee hadda masjidku ka dhisan yahay ee buurta qusax agteeda yani weeyaan faistaqbala alqibla nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu qaabilay qiblada xaggeeda ayuu u jeesto qibladuu qaabilay fadacaahu ilaahay buu baryey wa kabbarahu ilaahay waa weyneeyey oo takbiir buu la yimi allahu akbar wa hallalahu waa tahliishay yani laa ilaaha ila allahu buu yidhi tahliishu waa laa ilaaha ila allah yani laa ilaaha ila allahu buu yidhi wa waxadahu ilaahay waa keliyeeyey waa inuu waaxid yahay ayuu ku ammaanay falam yazal waaqifan kama zuulinoo kama bixin nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu taagan yahay halkaa mashcarulxaraamka oo ku ducaysanaayo xataa asfara jiddan ilaa uu caddaaday waagii aad iyo aad u caddaaday yacni waagii ilaa aad iyo aad u caddaaday ayuu markaa halkaa taagnaa oo bimacnaa dharaar ay noqotay fadafaca dabeed waa ka socday nebigu sala allahu aleyh wasalam oo daabaddii ayuu markaa waxa weyan yani markaa kaxeeyey oo dhaqaajiyey qabla an tatluca ashamsu intaan qoraxdu soo bixin ka hor ayuu daabaddii dhaqaajiyey oo halkaa ka tegey xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi jaabir
xadiiskii dheeraa ee jaabir buu ka mid yahay. maalinta sagaaloodka waxaa la taagnaa carafaa la taagnaa. carafo laga soo dhaqaaqi maayo ilaa qoraxdu dhacdo. qoraxdu markay dhacdo ayaa laga soo dhaqaaqaya carafa. nebiguna sala allahu alayh wasalam qoraxdu markay dhacday ayuu carafo ka soo dhaqaaqay. waa khilaafay markaa gaaladu waxay ka soo dhaqaaqi jireen intaan qoraxdu dhicin bay ka soo dhaqaaqi jireen carafa. nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaame waxa uu sugay ilaa inta qoraxdu dhacaysay. markii qoraxdu dhacday ayuu carafo ka soo dhaqaaqay, isagan weli tukan maqhribkiina dib buu u dhigtay. musdelife markuu yimi halkaasuu maqhrib iyo cishe oo jamci ah oo uu kulmiyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday. halkaa markuu ku tukaday deedna waa seexday. markuu seexday wuxuu markaa toosay, salaaddii subax ayuu u kacay. salaaddii subax markuu u kacay dabadeed markaa halkuu xalay seexday ayuu ku tukaday. markuu salaaddii ka baxay dabadeed waagii markuu caddaaday ayuu salaaddii tukaday, salaatu subxi ayuu tukaday. markaasuu deedna soo fuulayaa hasha uu rakuubka ka dhigtay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaas soo korayaa. dabeedna markaasuu mashcarulxaraamka xaggiisu qabanaya. bacdu ahlicilmi waxay mashcarulxaraamku waa musdelifo o dhan, laakiin culammadu waxay u badiyaan in mashcarulxaraamku meel khaasa oo ka mida musdelifo inay tahay, waana halka masjidku hadda ka dhisan yihi. buurta qusax yani markaa sinteeda oo masjidku ka dhisan yahay, halkaasaa mashcarulxaraama. halkaasaana nebigu sala allahu aleyh wasalam markaa uu istaagay. halkaasuu u soo socday isagoo markaa meeshuu seexdayba ay musdelifo tahay, haddana halkiisii kuma ducaysan. waa ka yimi nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaa uu halkaa yimi, goobtaa uu masjidku ka dhisan yahay agagaarkeeda meelahaas uu yimi. halkaa markuu yimi ayaa isagoo daabadiisii saaran, hashiisii saaran, ayuu xagga qiblada u jeediyey. qiblada isagoo u jeeda ayuu deedna ducaystay. duca dheer buu nebigu ku ducaystay. duca dheer ayuu ku ducaystay ilaa dhulku si fiican markaysa markaa yani uu noqonayo mid ilaysa oo waxaweeye aad iyo aad marka u cad ilaa uu noqonayo. laakiin qoraxdu maan soo bixin. soo bixitaanka qoraxdu soo baxaysa ma sugin nebigu sala allahu aleyh wasalam. taana wuxuu khilaafay mushrikiintii, gaaladii buu khilaafay. waayo gaalada caadadu waxay ahayd markay halkaa yimaadaan mashcarulxaraamka inay waxaweye sugaan inta qoraxdu ka soo baxayso. qoraxdu intay ka soo baxayso may dhaqaaqi jirin. halkaasay ku sugnaan jireen, halkaasay isugu faani jireen. aabbayaashood bay halkaa ku sheegi jireen, iyo marka aabbahay baa sidan ahaa isugu faani jireen. aabbahay baa sidan ahaa, aabbahay baa sidan ahaa, yani waxyaalahaasay ka akhrin jireen. markaasay waxay odhan jireen ashriq sabiiru kayma nugiir, buurta sabiirey waxaad noqotaa mid ilays lahoo qoraxdii bacadka hayo, si aan u dhaqaaqno, aan u soconno. si aan u weerarno, bimacnaa aan u soconno. markay arkaan buurtaa markaa in bacadku qabtay, markaasay dhaqaaqi jireen. nebigu calayhi salaatu wasalaam taana waa ku khilaafay oo ma sugin ilaa inta buurta sabiir uu markaa ilayska qoraxdu ka qabanayo ma sugin nebigu calayhi salaatu wasalaam. iyadoo qoraxdu aan soo bixin ayuu nebigu socday calayhi salaatu wasalaam. waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a in mashcarulxaraamka mawdica khaaska in lagu ducaystaa inay sunnatoo fiican tahay ayaa laga qaadanayaa. waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada in lala qaabilo qiblada, fastaqbala alqibla. yani waxay yidhaahdaan mashaayikhda qaarkood ducada waxaa u qibla samada. marka xadiiskan iyo axaadiis badanoo kale waxay caddaynayaan qiblada ducadu inay tahay qiblada salaada. axaadiis badan baa ku soo aroortay noocaas oo xadiiskana ka mid yahay, xadiiskii istisqaagu ka mid yahay, roobdoonta ku saabsanaa ka mid yahay, axaadiis kale ay ka mid yihiin sida axaadiista jamaraadka markay tuuranayeen nebigu sala allahu aleyh wasalam, yani jamratu suqra iyo jamratu lwusta, labada mid walba markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada. wakada safa iyo marwe markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada. wakada carafa markuu ducaysanayo wuxuu qaabili jiray qiblada. yani waxaa soo aroortay mawaadic fara badan oo nebigu sala allahu aleyh wasalam ducada la qaabilay, qiblada la qaabilay. waxaa kaloo xadiisku sheegayaa ducadii inuu ku laray dikri uu ilaahay xusaayo oo tawxiid leh oo takbiir leh inuu markaysaga ku laray. marka iyaguna waxa weye ducaa waa sanaagii baa ku jira, waa duco yani marka ammaan ah weeye. ducadii sariixa ahaydna waa la socotaa oo nebigu sala allahu aleyh wasalam waa la iman jiray.
baabka 121 التكبير عند رمي الجمار مع كل حصى takbiirta la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo cinda ramyi aljimaari marka waxa weeye dhagxanta la tuurayo maca kulli xasaatin xabad kastoo qururuxa la jirkeeda in la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo ayaa markaa halkanna uu sheikhu u baabaystay oo baabkan uu u guntay jamaraadka marka la tuurayo yacni dhagax kastoo la tuuraayo ama xabad kastoo qururuxoo la tuurayo waa in lala takbiirtaa oo allahu akbar la yidhaahdaa xadiiska 239 yukabiru kulama ramaa bixasaatin cinda aljimaari ahalaath wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar nebigu calayhi asalaatu wasalaam yukabiru waa takbiiranayo allaahu akbar buu odhanayey kulamaa ramaa bixasaatin markastuu tuuro xabad quruuruxa cinda aljimaari ahalaath yacni dhagax tuuradka saddexda ah dhagax tuurada saddexda agtooda xabad kastoo quruuruxa markuu tuuranayo wuxuu markaa odhan jiray allaahu akbar uma yataqaddamu intaa dabadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam hormarayey oo hore u soconayey wayaqifu waa istaagayey yadcuu xaaluu ducaysanayu istaagayey wuxuu ducaysanayey mustaqbila alqibla xaaluu qiblada qaabilaayo ayuu ducaysanayey raafican yadayhi wuxuu markaa ducaysanayey raafican xaaluu sare u qaadayo yadayhi labadiisa gacmood uu sare u taagayuu ducaysanayey labadiisa gacmood xaaluu sare u taagayo ayuu ducaysanayey bacda aljamrati aluulaa waathaaniya dhagax tuurka koowaad dabadeeda wathaaniyati iyo dhagax tuurka labaad dabadeeda ayuu ducaysanayey amaa jamratu alcaqabati fayarmiiha dhagax tuurka marka waxa weeye saddexaad miya oo jamratulcaqaba la yidhaahdo yacni jamratulkubra waa la yidhahda waa dhagax tuurka weyn jamratulcaqabana waa la yidhahdaa oo dee waxa weeye jirtii yacni buurta markaysa marka waxa karinta marka ay leedahay bay xoogaa ugu xigtaa xaggeeda xagga karinta buurta bay ugu xigtaa waddadaa buurta marka maadaama ay ugu xigto jamratulcaqaba la yidhahdaa jamratulkubrana waa la yidhahdaa dhagax tuurka saddexaad ee jamratulcaqaba la yidhahdo miya waa dhagax tuurka marka waxaan xagga markaa jiirta ama buurta karinteeda ku dhowe fayarmiiha waa tuuri jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam wayukabiru cinda kulli xasaatin waana takbiiranayey xabad kasta oo quruuruxa uu tuuraya agteeda xabad kastaoo quruuruxa uu tuuraya agteedana allaahu akbar buu odhan jiray wayansarif waa laabmi jiray walaa yaqifu cindaha agteeda isma taagi jirin oo kuma ducaysan jirin walaa yaqifu cindaha dhagax tuurkaa saddexaad agteeda isma taagi jirin oo kuma ducaysan jirin labada hore ayuu istaagi jiray agteeda oo ku ducaysan jiray labada dhagax tuure hore ayuu agtooda istaagi jiray oo ku ducaysan jiray isagoo qiblada qaabilaya xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim min xadiisi cabdillahi bni cumar xadiiskani wuxuu sheegayaa dhagax tuurada la tuuranaayo maalmahaas xajka ayaama minan la tuuranayo maalmaha mina 11 iyo 12 iyo 13 qofkii aan degdegin saddexdaa maalmood min saddex meelood baa la tuuraya maalinta tobnaad hal meel keliya la tuuraya saddexdaba lama tuuraya labada hore waa la soo dhaafaya jamrat asuqra iyo jamrat alwustaa dhagax tuurka yar iyo dhagax tuurka dhexe labada dhagax tuure xagga markaa masjidu khayf u xiga ama xagga mina gudaheeda u xiga labadaa waa la soo dhaafaya ka ugu soo baalleeye maka ugu soo xiga ayaa maalinta tobnaad la tuuraya oo jamratulcaqaba la yidhahdo ama jamratulkubra la yidhahdo aljamratulkubrana waa la yidhahdaa jamratulcaqabana waa la yidhahdaa laakiin saddexda maalmood ee dambe 11 iyo 12 iyo 13 qofkaan degdegin waxa uu tuurayaa saddex dhagax tuur buu tuuraya wuxuu kaga soo bilaabayaa dhagax tuurka ugu xiga xagga masjidu khayf ama mina gudaheeda ugu xiga dhagax tuurka xagga mina ugu xiga dhagax tuurka xagga mina ugu xigu kaga soo bilaabaya oo jamrat asuqra la yidhaahdo kaas wuxuu ku tuurayaa 7 dhagaxoo yaryar dhagxanta la tuurayaa qaar waaweyn ma aha kaaniyaalla ma aha waraaba tuura ma aha yacni waxa weye dhagxanta la tuuraya waa quruurux nebigu calayhi asalaatu wasalaam dhagxantaa yaryare quruuruxa ayuu sacabkiisa saaray markaasuu amhaala haaulaa'i farmuu ayuha annaas kuwaasoo kale tuura wuxuu u diray
fadl ibnu cabbaas buu yidhi marka ulqut liya alxasa quruurux ii soo gur falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waxaan u soo guray markuu yidhi quruurux ii soo gur quruuruxa markaysagaa finiinkae fartiya suurka sidaa lagu tuuro ayaan u soo guray buuri ya falaqadtu lahu xasayaatin hunna xasa alkhadfi waa kuwa yaryare fartiya suurka sidaa loogu tuuri karo kuwaasaan usoo guray buuri baabacadiisu sidaa u saaray buuri markaasuu amhaala haaulaa'i farmuu ayuha annaas kuwaasoo kale tuura dadow wa iyaakum alghuluwa fainama ahlaka man kaana qablakum alghuluwu fi ddiin ya waxaan idinka digaya inaad diinta ku talax tagtaan waayo kuwii idinka horreeyey waxaa halaagay inay diintii ku talax tageen oo ghuluwi la yimaadeen ayaa halaagay ghuluwiga xaggay khusaysaa culammadu waxay yidhaahdeen hadduu ruuxu is yidhaahdo waxaa ka fadli badan dhagxantan yaryar kuwa waaweyn in la tuuro ya waa nooc ghuluwi ah waa talax tag diintii lagu talax tegey ya ila kama fadli badna dhagxanta waaweyn haddii loo ictiqaadiyo inay ka fadli badan yihiin ya ta kale nebigu markuu yidhi kuwa yaryar tuura in laga tallaabo oo kuwa waaweyn la tuuro iyadoo loo malaynayo fadiiladii inay ka badan tahay dee waa laga xadgudbo yani markaa ghuluwi baa lala yimi siduu nebigu yani markaa wasadiyadii uu sheegay ya ee dhexdhexaadka ahayd waa laga tallaaba markaa sidaas aawadeed kuwa la tuuraya waa dhagxanta ayardha quruurxa halkanna waa kan inoo sheegaya kullamaa ramaa bixasaatin wuxuu tuuraya dhagxantaa yar ee quruurxa buu tuuray xabad xabad baa loo tuuraya laysma raacinayo mar lama wada tuurayo waxay ahlucilmigu yidhahdeen haddii 7 xabbo mar la wada tuuro mid un baa la xisaabinaya inta kalena waa lahwi wax ka soo qaad male waa in mid walba mar gaara la tuuraa gacanta midig baa lagu tuuraya gacanta midig ayaa lagu tuuraya marka la tuuraayo mid walba waxaa la odhanaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasaa loo tuuraya sidaas ayaa loo tuuraya ilaa 7 xabbo sidaa ku dhammaystirmaan dadka qaarkood waxay ku daraan bismi illaahi oo waxay yidhahaan bismi illaahi wallaahu akbar laakiin ma soo aroorin nebigu calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi inuu raaciyey oo labada iskuma darin saxaabada laftoodana lagama hayo labada inay isku dareen waa dhacday saxaabada qaarkood inay inay tawaafkoo kale ku dareen bismi illaahi bacdu saxaaba marka laakiin xaggan jimaarka ramyuljimaarka markay tahay dhagxanta la tuuraayo bismi illaahi in lagu daraa nebigana kama iman saxaabadiisana kama iman saas aawadeed ziyaadada waa inaan waxba lagu darin waa in allahu akbar keliya la yidhaahdaa allahu akbar keliya waa in la yidhahdaa ruuxa haddii gacantii midig markaa aanu ka tuuri karayn ama markaa waxa weye aafa kaga sugan tahay amaba u go'an tahay dee markaa waxay noqonaysaa inuu bidixda ka tuuro ayay markaa noqonaysa xadiisku wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu labada dhagax tuuree 1 iyo 2 inuu markaa ducaystay weliba waxaa riwaayaadka qaarkood sheegayaan ducada uu ku ducaystay duca aad u dheer inay ahayd jamrata suqra markuu tuurto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ducaystay duca aad iyo aad u dheer saxaabadii waxay ku qadareen oo yidhahdeen qadarku ducaysanaya waxay ahayd dhagax tuurkaa 1 markuu tuuray ee jamrata suqra qadar suuratulbaqara la akhriyo ayuu nebigu taagnaa u ducaysanayey ya waa garanaysaa intay suuratulbaqara la egtay ya waa duca aad iyo aad u dheer kadib dhagax tuurka 2 markuu tuurtay nebigu sala allahu aleyh wasalam horuu u socday qibladuu qaabilay markaana waa ducaystay duca aad u dheer laakiin in yar ka yar ducadii uu markii hore ku ducaystay ka yar duca ka waabsanoo ka yar wakhtigeedu ka yar yahay ayuu ku ducaystay laakiin iyaduna aad u dheer ta 3aad markuu tuurtay nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ducaysan markii waa dhaqaajiyey marka ficilka uu nebigu sameeyo iyo tegista uu ka tago mid walba waa in lagaga daydaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaa saas yadaa weeye baabka 122 ducaau tacajubi waalamri asaari ducada markaa lagu ducaysanayo marka la yaabo oo wax la yaab le ruuxa la kulmaan iyo walamri saari arrinka farxadda le markay la kulmo walamri saari iyo arrinka farxadda le wax kaga farxinayaa markuu la kulmo inuu ducaysto ama ducadu ku ducaysanayo xadiiska 240 subxaana allah wuxuu sheegayaa wax la yaab leh markuu la kulmo inuu markaa waxa weeye tasbiixsado subxaana allahi yidhaahdo taasna waxay ku soo aroortay axaadiis badan oo kala duwan bay ku soo aroortay waxaa ka mid a xadiiskii marka abu hurayra ee sheegaya subxaana allahi ina almuslima laa yanjusu
ama subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu. axaadiistana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey. bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey. subxaana allahi ina almuslima laa yanjusu bukhaari baa soo wariyey. subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu abu hurayru markiisaa la hadlay. abu hurayra wuxuu u qabay ruux hadduu janaabo qabo in dadkii marka waxa weye inuu salaamo oo markiisaa la joogo inaynay ahayn. marka waxa weeye sidaas aawadeed ayuu marka ku yidhi muslimku ma nijaasoobo. marka nebiguna waa tasbiixsaday calayhi asalaatu wassalaam. marka waxaa laga qaadanayaa wax lala yaabo marka la arko in la tasbiixsanayo subxaana allah la odhanayo. xadiiska 241 allahu akbar waa saas si la-eg marka arrin lagu farxa la arko ama arrin lala yaabo la arko in allahu akbar la yidhaahdo iyaduna waxa waa jirtaa, waa soo aroortay, waa jirtaayo waa soo aroortay. waxaa ka mida xadiiskii ku saabsanaa khaybar nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu tegey uu doonayey inuu furto nimankii yuhuudda meesha deganaa markay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam yani waxa weeye way naxeen. dabeedna markaasaa nebigu yidhi allahu akbar kharibat khaybar, allahu akbar kharibat khaybar. ilaahay baa weyni badanoo wax walba ka weyn. khaybar waa markaysa waa kharaabtay ama ha kharaabto. saas yadaa buu marka uu yidhi. xadiiskana wuxuu ku sugan yahay bukhaariga ayuu ku sugan yahay, waana min xadiisi anas ibni malik weeyaan. axaadiis kale lafteeda waa ku soo aroortay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi allahu akbar. waa soo aroortay xadiiskii laftiisa abi waaqid alleysi ku saabsan allahu akbar inaha sunan latarkabunna sanana man kaana qablakum. yani isaguna wuxuu ku soo arooray lafdiga allahu akbar riwaayaadka qaarna waxaa ku soo aroortay subxaana allah. yani labada riwaayaba way jirtaa. marka axaadiis mutacadida ay ku yimaadeen dikrigaas in ilahay lagu xusayo. axaadiis mutacadida ayay ku yimaadeen. allahu akbar marka kharibat khaybar wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay oo wuxuu ku yimi fii saxiix albukhaari ayuu markaa ku yimi, waana min xadiisi anas. waxaa la soo naqliyaa bacdu salaf inay karaahiyeysteen marka la yaabo in tasbiix ama takbiir lala yimaado inay karaahiyeysteen ayaa laga soo naqliyaa bacdu salaf. laakiin karaahadaasi maxal male, karaahadaasi shay saxa ma aha, maadaama marka waxa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo axaadiis la hayo. axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa la raacayaa. cidda karaahiyeysatay waa cid mas'aladu ka qarsoontay. marka sidaas aawadeed yani waxa weeyaan iyada marka lama raacayo. wax karaaho ku jiraana ma jiraane waa shay maxmuud oo fiican weeye. marka la yaabitaanka in la tasbiixsado ama la takbiirto allahu akbar la yidhahdo ama subxaana allahi la yidhahdo. xadiiska 123 maa yafcalu man ataahu amrun yasuruh. wuxuu samaynaayo kuu u yimaado ama la kulmo arrin farax geliya uu la kulmo wuxuu yeelayo samaynayo ayuu halkanna kaga hadlayaa. xadiiska 242 kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam ida ataahu amrun yasuruhu aw yusaru bihi. nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi asalaatu wassalaam ida ataahu markuu u yimaado amrun yasuruhu arrin farax gelinaya markuu u yimaado nebiga calayhi asalaatu wassalaam aw yusaru bihi ama arrin lagaga farxinayaa oo sababtiisa uu ku farxayaa uu yimaado. siiqadaa laga dhigay mughayaro siiqo. aw yusaru bihi ama arrin lagaga farxinaya markuu u yimaado oo lagu farax gelinaya markuu u yimaado wuxuu markaa samayn jiray oo uu ahaa khara saajidan mid dhaca ayuu ahaa saajidan xaal uu sujuudaayo oo sujuud doonaayo sujuud niyeysan yahay buu dhici jiray. shukran lilaah wuxuu markaa u dhacaayey sujuudda ugu dhacaayey shukran lilaahi shukrinaquu ilaahay u shukrinaqaayo ama xaaluu ilaahay u shukrinaqaayo ayuu markaa sujuudda u dhacay. waxaa bannaan saajidan damiirka mustakiniga ku ah inaad markaa ka xaalayso waxaad tidhaahdo wuxuu sujuudayey shukran lilah ay shaakiran lilaah xaaluu ilaahay u shukrinaqaayo sujuudaay tabaaraka wa tacaala. ama aad ka dhigto laba xaaloo mutaraadifaan ah, laba xaaloo mutadaakhilaan oo isku guda jira laga dhigo ama mutaraadifaan oo isfangashan laga dhigo. haddii mutaraadifaan laga dhigana waxay noqonaysaa khara faacilkeeda labadaba in laga xaaleeyo. khara wuxuu dhici jiray saajidan xaaluu markaa sujuud niyeysan yahay buu dhici jiray oo sujuud doonaayo, waa xaala manwiya. shukran lilaah xaaluu markaa waxa weeye yani shukri naqaayo ayuu markaa dhici jiray.
ama la yidhaahdo mafcuulu lahu alloo laqbeeyo wuxuu markaa sujuud u dhacayey shukran lilaahi shukrinaq daraaddeed uu ilaahay u shukrinaqayo wejigaa weliba markaa waxa weyan yani mafcuul lahuga baana sii fiican tabaaraka wa tacaala ilahay isagaa khayrkiisu batay oo barakadiisi iyo khayrkiisu fara bateen wa tacaala isagaa koreeye xadiiskan waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey min xadiisi abi bakra xadiiska abi bakra isagoo ka mida sheekh albaanina waa quweynaya marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa sujuudu shukri in lala yimaado marka nicmo qofka ku cusboonaato nicmo cusubi markay u soo darido oo nicmadii markaa waxa weeye u ogaado isla markaa inuu sujuudu shukri la imanayo ayuu xadiisku sheegaya waxaa la mida bay yidhahdeen culammadu hadday balaayo ka daafacanto balaayo ku soo aadanayd baa balaayadii ka baaqatay iyada qudheedu waa nicmo markaa sujuudu shukri wakhtigaana waa la imanaya waa sujuud ilaahay loogu shukri naqaayo marka sujuudu tilaawaha waxay kaga duwan tahay qasadka horta waa kaga duwantaho iyo sababtay ku yimaadaan oo midna tilaawaha sababta mawdicyo khaas oo qur'aanka ka mid oo la akhriyo sujuudu tilaawaha sabab u ah sujuudu shukrigana akhrin qur'aan la akhrinaya uma sabab ahee nicmo kaleoo ruuxa u cusboonaata u sababa xilliga lala imanayana waa kala duwantoo sujuudu shukri salaadda gudaheeda lagulama yimaado sujuudu tilaawa salaad iyadoo lagu jiro iyadaan lagu jirin mid walba waa lala yimaadaa laakiin sujuudu shukriga salaad gudaheed lagulama imanayo saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhahdaan ruux hadduu salaadda gudaheeda sujuudu shukri kula yimaado in markaa garasho la'aan ama ilowshiye iyo wax la mida loogu cudro mooye hadduu u badrheedho salaaddu waa buraysaa bay yidhahdeen marka salaadda gudaheeda lagulama iman karo sujuudu shukri lagulama iman karo asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ridwaan ullaahi cala asaxaaba waxay ahaan jireen iyagana nicmo marka ku cusboonaato qaar markaa waxa sujuudu shukrigaa la yimaado bay ahaayeen waxaana ka soo arooray dhacdooyin kala duwan sida marka cali bnu abi aalib markuu khawaarijta markuu la dagaalamayey oo waxa weeye markaa dagaalkii dhammaaday oo nimankii la laayey badankoodii midhar yaroo baxsaday mooyaane intoodii kaleo dhan gamta la ysu taagoo la laayey ayaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cali baa odhanaya nebigu wuxuu sheegay nimankaas yacni nin ka mida oo calaamada ayuu sheegay nimanka waxa weeye khawaarijta ah ee dilkooda fadli uu ku sugan yahay ajarka badani uu ku jiro wuxuu yidhi marka waxa weye waxaa u calaamada nin waxa weeye marka cududda naasoo kale wax la midi ka laalaado dasadya nin marka waxa yani naas buu u saaxiib yahay naaskuna cududdaasu ka laalaadaa waa cad laalaadoo naasoo kale ah ayuu cududda ku leeyihi calaamad caynkaasaa nebigu sheegay buu yihi sala allahu aleyh wasalam ninkii hala soo baaro nimanka la dilay halaga soo baaro markaasaa la soo eego markaasaa xoogaa la waayey hore loo waayey markaasuu yidhi been ma sheegin buu yidhi waa in la soo baaro ninkii la helaa markii dambaa meel laga helay markii la helay ayuu ku farxay dabeedna markaasuu sujuudu shukri buu ilaahay u dhacay sujuudu shukriga wuxuu ugu dhacayaa nimankaa dilka la dilaayuu nebigu wuxuu u sheegay fadli aad u fara badan yacni tuuba liman qatalahum geedka janna wuxuu u sugnaaday ama markaa wanaag fara badani wuxuu u sugnaaday cidda disha yani wuxuu u sheegay fadiilo fara badan baa nebigu u sheegay marka fadligii inuu markaa muxaqaq yahay ayuu ku hubinayo halkan ku hubsanayey marka hore ha u badiyaba markaa inay iyagu yihiin laakiin calaamaddii uu nebigu sheegay markuu helana dee yaqiintii waa usii kordhaysa oo arrinkaas yani marka uu yaqiininayey waa usii ziyaadaysa sidaas aawadeed sujuudu shukri ayuu marka u dhacay cali bnu abi aalib kacbu ibnu maalik markii loogu bushaareeyey towbadda ilaahay ka aqbalay saxaabiga la yidhahdo kacbu ibnu maalik markii loogu bushaareeyey inuu ilaahay towbaddii ka aqbalay oo bushaaradaasi ay soo gaadhay sujuudu shukri buu ilahay ugu dhacay wuxuu ihi salaad subaxan oo tukaday oo gurigayga korkiisa aan ku tukaday buuri maadaama laga haajiray oo dee markaysa markaa waxay ka qaataan culammadu ruuxa markaa waxa weeye dadku layidhi ka haajira inuu markaa cudurdaar ay u noqonayso uu jamaacadii uga hadhi karo marka gurigayga korkiisa aan ku tukaday buuri salaaddii subax markaan tukaday dabadeed ayaan waxaan maqlay buuri cod nin baa dhawaaqay cod dheer
yani saxaabadu waxay u soo kala dheereynayeen si ay ugu bushaareeyeen nin baa wuxuu soo fuulay buuri markaysaa faras suu degdeg igu soo gaadho isagu uu noqdo awalu man yubashir nin kalena waa dhawaaqay buuri codkii baa ka soo dheereeyey buuri ninkii markaa faraska soo fuulay iyadoo marka uu leeyahay ku bushaarayso yani waxa weeyaan kacb ibn malik ya tawbadii ku bushaarayso markaasaan waxaan u dhacay buuri sujuud aan ilahay u sujuuday ya marka taasina waxay ka mid tahay waqaa'icda markaa saxaabada ka dhacday marka saxaabadana waa ka soo aroortay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam dayasho ay ku dayanayaan ay kala kulmeen ayay markaa iyaguna u sujuudayeen marka sidaas aawadeed waa marka waxa weyn yani sujuudu shukrigu marka nicmo qofka ku cusboonaato inuu markaa sujuudaa sujuudu shukri waa fiican tahay baabka 124 maa yaquulu man axasa wajacan fii jasadihi wuxuu odhanayo qofka ka dareema xanuun jidhkiisa ka dareema wuxuu odhanayo xadiiska 243 dac yadaka cala aladii ta'allama min jasadik dac dhig yadaka gacantaada waxaad saartaa cala aladii kii mawdicii ta'allama xanuunsaday min jasadika jidhkaaga xaaluu ka mid yahay xanuunsaday waqul waxaad tidhahdaa bismi illaah magaca ilaahay buu ku sugnaaday bilowgaygu ay bismi illaahi ibtidaa'ii ama bismi illaahi magaca ilaahay baan abtadi'u ku bilaabayaa 3 goor buu ku celinayaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah 3 goor buu odhanaya sida uu qoray marka waxa weye hadda dabcada loo qoray waa laga fiican yahay oo ba'da marka in hamsadii lagu taagaa fiicnayd sida rasmiga marka caadiga u waafaqsanayd saasay yani waxaa jirtaa hamsada waxa la xadfaa hamsatul wasliga ah marka bisimka la dhammaystirayo oo bismi illaahi arraxmaani arraxiim markay kaamiltoo dhammaystiran tahay lama qoro hamsadaas mamnuuc laakiin haddii aan la dhammaystiraynin oo bismi illaah keliya ay tahay oo isimkii oo kaamiloo arraxmaani arraxiim la soconnin hamsada lagama tago yaan la akhrinin laakiin lagama tago qoraal ahaan rasmulcaadi kama hadlaya rasmi musxafka rasmiga musxafku waa siduu u yimi isagu qaacido marka waxa yani wuxuu ku socdaa uun sidii saxaabadu u qoreen laakiin rasmiga caadiga isagu waa istilaaxi qawaacid buu leeyahy aan la khilaafin rasmiga caadiga ah bismi illaahi haddii aan la dhammaystiraynin lagama tago marka waxa weyaan hamsada hamsatul wasliga ah ilaaba ilaa waa in la qoraa laakiin haddii la dhammaystiraayo waa in la xadfaa oo aan marnaba la qorin waqul waxaa tiha bismi illaahi dheh 3 goor saa dheh waqul waxaa tidhahda 7 maraatin 7 goorna waxaa tidhahdaa acuudu billaahi waxaan magan galay ilaahay allah baan magan galay ilaaha xaqa ah ayaan magan galay allah waxay la macno tahay alilaahu alxaq ilaaha xaqa bay la macno tahay acuudu waxaan magan galay billaahi ay allah baan magan galay alilaahu alxaq ilaahay xaqa ahaa baan magan galay wa qudratihi awooddiisaan magan galay waxaan ka magan galay min shari maa kii sharkiisa ajidu aan helayo yani kii sharkiisa ajidu aan helayo oo bimacnaa xanuunkiisa hadda aan dareemayo wa uxaadiru iyo kaan ka baqayo yani wuxuu u jeedaa yani dhibta hadda aan dareemaye igu sugan hadda ee jirta iyo dhibtaan ka baqaye mustaqbalan inay ii timaaddo aan ka baqayo labadaba ilaahay baan ka magan galay waan ka hoos galay allah wa qudratihi ayaan markaysagaa ka magan galay inuu allah iga magangeliyo xadiiska waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cuhmaan ibni abilcaas xadiiskani wuxuu sheegayey qofka meeli jidhkiisa xanuunayso wuxuu saarayaa gacanta meesha xanuunaysa meeshay doontaa noqoto gacantiisa midig buu saarayaa meesha xanuunaysuu saaraya markuu meeshaa saaro ayuu 3 goor wuxuu odhanayaa bismi illaah bismi illaah bismi illaah isagoo qalbiga soo xaadirinaya niyada isagoo soo xaadirinaya ayuu saa odhanaya dabeedna marka waxa isagoo gacantii weli ku hayaa buu 7 goor wuxuu ku celinayaa niyaddiina uu soo xaadirinayo acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir 7 goor buu ku celinaya sidaas yadaa buu odhanaya waxaanu ku odhanayaa biniya ya niyo ikhlaas ah ayuu ku odhanaya sida hadduu yidhahdo xanuunku waa ka tegayaa in sha allah waa ka tegaya sababtu waxay cuhmaan ibn abilcaas baa markuu islaamay xanuun buu dareemay xanuunkii ayaa ka tegi waayey nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ya rasuul allah laga soo bilaabo markii aan islaamay ilaa haddadaa meelunba had iyo jeer i xanuunaysa
dabeedna markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam meesha gacanta saar bismi illaahi 3 goor dheh dabeedna markaa ducadaana ku ducayso acuudu billaahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadir riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadir oo cize in lagu darayo ayaa riwaayaadka qaarna ku soo aroortay sidii baan idhi buu sameeyey 3 gooroo bismi illaahi aan idhi gacantii aan saaray 3 goorna bismi illaahi aan idhi 7 goorna acuudu billaahi wa qudratihi min shari ma ajidu wa uxaadir inaan idhaahdo dabeedna markaasaa xanuunka iga tegey xanuunkii meeshii xanuunaysa waa iga ba'ay buuri yani markaa yaqiin waa inuu kula yimaadaa qofku iyo ikhlaas markuu sidaa yeelayo yaqiin iyo ikhlaas uu yaqiinsan yahay nebigu sala allahu alay wasalam siduu sheegay ikhlaas iyo ilaahay dartiina ula imanayo waxyaalaha laga qaadanayo laga dariishanayo waxaa ka mid a sifaatka ilaahay inaanay makhluuq ahayn waayo waa la magan galay oo waxa weeye wa qudratihi iyo qudrada ilaahay magangal la magangela ayaa ku sugan riwaayada kale ee markaa waxa cizada kordhinaysana waxay noqonaysaa 2 sifo sifaatka ilaahay in la magan galay acuudu bicizati illaahi wa qudratihi yani marka waxay ku tusinaysaa sifaatka ilaahay inay yihiin hayru makhluuqa yani waxa weeyaan qaaran makhluuq ahayn inay yihiin oo inay bannaanta in la magan galana waa laga daliishanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cidda waxa weeye markaa sidaas waxa